كلام عن دعوة الكوسو دواء برنامج رادراع وحنا وكله أتكدا وتان تلفزيون كقرن برنامجنا على بقى وحا أينو سيجارة كجهل لنا خذ بدأ أجوا وين ما أنت هزجرا عاو برنامج كنا وحنا سيجارة ديرة أجوا صار دونا امتحان كشهادة جدي وسيجا دحية وبري رسمي كجا فرمي دونا قبل كبنادر وحان برنامج كو فلانقين دونا امتحان كاس يسوق بريتو كفرمية مجرد المقدشو استمر كانت سيدا إمامك قبل كو وجود يا جروبي iyo guud ahaan faahfaahin ku saabsan imtixaankaas ayaan barnaamijka caawa ku eegi doonaa isla markaana ku falanqeyn doonaa waxaa nagala qayb galaya barnaamijka oo caawa nala jooga agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada ee gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Nuur oo aynu wax badan ka weydiin doono arrimaha imtixaanaadka dugsiyada dhexe shahaadiga ah ee berito furmaya marka waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo agaasime soo dhawow waana kaaga mahadcelinaa waqtigeeda qaaliga ah marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa imtixaankan shahaadiga ah ee dugsiga dhexe ee beri ka furmaya gobolka Banaadir waa mahadsan tahay waa dhawahay waa marka hore ilaahay mahad celinaya kadibna raadiyaha qaranka TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo caawi meeshan ugu marti qaaday si aan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir aan la wadaagno imtixaanka beri bilaabanaya hawlihiisa taas waa marka kaga mahad celinaya tan labaad su'aasha ay weydiistaan gudbo beri waxaan noo bilaabanay handaalin imtixaankii shahaadiga ee fasalka 8aad ee sanadkii labaad gobolka Banaadir markuu waxbarashadii la soo wareegay sanadkii labaad ayuu imtixaanka qaadayaa fasalka 8aad sanadkii hore waxaa la qaaday wasaaradda waxbarashada ayaa nala qaaday si agaasinku uu awoodiisa loo tijaabiyo loona arko soo baxaya iyo wasaaraddu una barto maadaama ay imtixaanaadka sanad badan soo qaadi jirtay ay u barto sida habka imtixaanka loo qaadayo si wada jiraan u qaadnay alxamdulillah ilaahay noo guuleysay sanadka dhaweeto kan waa kii labaad waxaana imtixaankan qaadistiisa iska leh gobolka Banaadir gaar ahaan qaybtiisa waxbarashada agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir kaligiisaan ka shaqeeyay wasaaraddu maadaama sanadkan la qaaday sanadkan waxay madax banaysay in gobolka Banaadir asii imtixaankiisa qaato alxamdulillah waana meel fiican buu noo maraya waa sanadkan waxa u gacan banaan gobolka Banaadir waa gartay agaasime maadaama waxbarashadii wasaaradda waxbarashada kala wareegteen maamulkeedii guud iyo guud ahaan tacliintii la xiriirtay waxbarashada gobolka imise arday ayaa imtixaanka u fariisan doonta maadaama imtixaankan uu yahay kii dugsiga dhexe waa maasanta walaal imtixaanka waxaan u fariisan doontaa marka hore ku talagalka wuxuu ahaa dugsiyeedka markuu soo bilowday bishii Agost 2020 markuu dugsiyeedku soo bilowday ayaan ardadii diiwaangelintoodii iyo laga shaqeeyay dhammaan ardadoo dhan fasal kasta ha noqdo ayaa diiwaangelintii laga shaqeeyay iyadoo la isticmaalayo qaybta imis oo loogu talagalay xogta ardada in lagu xareeyo iyo macallimiinta iyo dhammaan iskuulaadka hawlahooda in lagu xareeyo xogta ardada markii aan soo gaarnay xilliga imtixaanka diyaargarowgiisa bilihii u dambeeyey Maarso 2021 iyo wixii ka dambeeyey xogta noo diyaarsanay in imtixaanka gasho waxay ahayd 30,888 arday ayaa ku talagalka ahaa fasalka 8 imtixaan u galaan markii imtixaankii hawshii soo dhawaatay xilli la sameeyay qaabkii ama qorshihii imtixaanka lagu gali lahaa lagu diyaar garoobi lahaa markii la sameeyay ayaa waxaa la tagay xarumihii ardaydu wax ku baranaysay iskuulaadkii wixii intaas shaqooyin dheer la soo qabtay dheer kadib waxaa noqotay nambarka rasmiga ah ee beri imtixaanka insha Allah u fariisan doonta ee aan u diyaarinay imtixaanka 26,688 arday ayaa imtixaanka u fariisanaysa maadaama 30 iyo intaas oo kun 30,888 arday ku talagalku ahaa waxaa farqi noqotay 4,200 marka waxa lahaa waa arday aan muxuu ahaa iskuulkii hadda fadhin imtixaankii aan gelin afka qalad waxa la drop out macnaha uu ka haray waxbarashadii siyaabo badan ilmaha waxbarasho uga hari karaan marka ku talagalka biri imtixaanka hadda aan waxa u fariisanaysa 26,688 arday marka suurtagal ma ahayn afartaas kun imtixaanka galaan maadaama 30,000 markii hore aad diiwaan geliseen laakiin ka daba tag iyo baaritaano badan aad sameyseen iyo goobihi aad tagteen ay 26,000 noqdeen waa gartay agaasim 26,000 maadaama ay galayaan sanad dugsiyeedkii hore 2019 iyo 2020 waxa u fariistay imtixaanka 25,420 iyo 6 arday marka la fiiriyo sanadkan 26,000 oo soo dhawaaday maxaa isbedela maxaa farqiga u dhaxeeya sanadkii hore runta marka la fiiriyo waxa u dhaxaysa arday
kun iyo xoogaa ah ayaa u dhaxaysa waana wax caadi lagu yaqaano sababta ardadu kore waxay u soo socotaa fasal ay ka soo gudbeen fasal kale u soo gudbeen qaar waxay ka imaanayaan gobolada bedelay ku imaanayaan nambarkaas marka oo siyaada wuxuu ku imaanayaa fasalkii oo 7 ardayda ahayd iyo ardayda gobolada ka timid ay wuxuu keenayaa farqigaas marka ziyadaas waxay tilmaamaysaa in waxbarashadii dadku ay soo doonayaan dugsiga dhexna ay tirabatay waa gartay xarumaha sanadkii hore 73 xarumooda imtixaan ku qaadeen sanadkan imisa xarumada ku qaadaysan sanadkan waxaan ku qaadaynaa 72 xarun ayaa loo diyaariyay imtixaanka oo imtixaanka lagu qaaday dual imisa dugsiyeedkan runtii waxaan uga mahad celinaynaa dadka xarumaha iskale xarumuhu dhowr nooc waaye qaarna waa iskuulaadkii dawladdu lahayd public dhigi jiray qaar waa iskuulaad dad private leeyihiin oo guryo waaweyn degan qaarna waa jaamacadihii waddanka jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee ummadda soomaaliya leedahay dhammaantood u mahad celinaynaa runtii gaar ahaan iskuulaadka gaarka loo leeyahay oo xarumo kiraayo oo degan ardadii noo fasaxay jaamacadaha magaalada muqdisho oo nagala shaqeeyay jaamacadda ummadda iyo kuwa kale oo gaarka loo leeyahay ayaguna noo aqbalay inay ardadii fasaxaan macallimiinta fasaxaan imtixaanka u arkaan imtixaan qaran uu yahay ay noo fasaxeen waxaan leenahay aad u mahadsantihiin waana waxa waaye kaga mahad celinayna markasta ilaahayna waxaan ka rajeynayaa inuu ajri ka siiyo sababta dadku waa inay arkaan inuu imtixaanku yahay wax qaran amni qoomi lagu daraa imtixaanaadka lagu daraa marka imtixaankii dugsiga dhexena ay u ogolaadeen inuu ka socdo 5 maalin imtixaankii form 4 asna ku xigana oo 5 maalin kale ka socdo intaas 12 ilaa 12 bari ayayna siin xarumaha waa uga mahad celinayna dhammaantood jaamacadaha iyo bahda kale dhammaantood ma siihin imtixaanka maadaama dugsiga dhexe uu yahay oo ardayda shahaadiga ay dugsiga dhexe ka gudbayeen oo dugsiga sare ay u gudbayeen habraacyo oo u dejiseen oo qaarkood marka soo saarteen way jireen habraacyo kale oo la xiriira imtixaanka oo ardayda loogu talagalay inay raacaan inta imtixaanka lagu soo socdo yes waa mahadsantahay walaal waa su'aal fiican habraacyada waa diyaarinay waxaan ku dadaalnay in sanadkan kaga duwanaan sanadka hore maadaama sanadka hore ardayda dhacday aad u badneed agaasinku muxuu ahaa sanadkaas uu ku cusbaa annagoo ka faa'iidaysayna qodobadaas oo dhan ayaa waxaan juhdi ku bixinay inaan wacyigelin samayno arday wacyigelin badanaa u samaynay dad badan oo magaalada muqdisho macno ku leh magac ku leh culummo leh nooc kasta leh arrimaha bulshada haweenka dhammaantood dad badan oo muuqaal ku leh magaalada muqdisho magac maamuus ku leh ayaa u yeernay waxaan ka duubnay warbixino waxaan soo dhignay baraha bulshada sidoo kale taasoo loogu talagalay ardayda in lagu wacyigeliyo loola hadlo haddana intaasoo kale waxaan soo dhignay qodobo ah oo ardayda ugu sheegayna waxaa ugu dambeysay shalay waxaan soo dhignay ilaa dhowr iyo 10 qodobo ah qodobahaasoo dhammaan arday u sheegaysa waxyaabaha loo ogolayay waxyaabaha mamnuuca ka inuu ardayga uniformkii soo qaataa laga rabaa hadduu dugsi dhexe yahay hadduu dugsi sare yahay labada imtixaanba sababtaa uniformka arday waa lagu aqoonsanayaa waxaa ogtaa magaalada caqabad badan oo amniga dartiisa waxaa waaye waxaa jira meelo badan oo control lagu talagalay amniga lagu ilaaliyo meelahaas markii soo maray ardayga markuu uniform wato iyadoo habraaci amni la marayo waxay fududeynaysaa in ardayda soo marto waxaa ka mid ah arrintaasna ciidanka si fiican baa runtii ula fadhiisanay booliska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir iyo si guudba inay arrintaa fududeeyaan ardayda marka waxaa laga rabaa inay markii checkpoint meelaha soo marayaan inay ayagana waalidiintu soo raacaan maadaama ilmaha yar yihiin dugsiga dhex gaar ahaan waalidka ay la fududeeyaan ardayga inuu soo maro muxuu ahaa jidadkii ardayda marka waxaa laga rabaa inay fududeeyaan markay jidka soo marayaan inay ilaaliyaan habka maamuuska ciidanka si fiican ula hadlaan waxyaabaha ardayda lagala hadla waxaa ka mid ah inay iskuulka yimaadaan waqti hore siisa maxaa u daahin waxaa ka mid ah inay qalimiinta isa soo qaadan hal qalin iyo soo qaadan qalimiinta soo badsadaan waxyaabaha lagala waxaa ka mid ah wax kasta oo keeni kara imtixaankiisa inuu cilad ku sameeyo inuu ardayga iska ilaaliyo oo ka fogaado waxaas laga hadlay waxaa kaloo ardayda laga rabo waxaa ka mid ah soo saarnay xarunta ciidana jooga dad lagu talagalay amniga ardada iyo amniga dadka xarunta iyo wax dhan ilaaliyaan jooga jira inay u dhignoolaadaan oo dhagaha u furaan oo ay qaataan oo amirta meesha la siinayo ayadana waan kala hadalnay ciidanku booliska ah waa dadka ayuu muxuu dugsadaan waxaa loogu talagalay inay dadka muxuu u gargaaraan anagana inaan saas u aragnaan la karo marka ardada waxaa laga rabaa maadaama yihiin mustaqbalkii ummadda inay booliska la shaqeeyaan oo u fududeeyaan muxuu baarista fududeeyaan soo gelista fududeeyaan muxuu bixista intaba waa gartay agasim si fiican u sharaxday qodobkaas la xiriira habraacyada imtixaanka loo dejiyay
markii labaad aad qaadantaan imtixaanka markan waliba kaliya ku tihiin oo maamulka gobolka tihiin iskaashiga aad la leedihiin hay'adaha ammaanka gaar ahaan booliska oo isagu shaqo badan qaban doona ee goobaha xarumaha joogi doona controlka iyo guud ahaan la socon doona hawsha ammaanka ee soconaysa wada shaqaynta ka dhaxsantay gaarsiisanta وماسنت ولا ما دام امتحانك وياهي waxa loo yaqaan amni qoom oo ay tahay waxyaabaha dawladnimada dhisa si loo soo saaro oo aqoon leh oo qofka wax imtixaan wax loo qaadayaa sanadan wax la soo barayay tijaabooyin badan soo maray waxaan rabaa in la ogaado qofkan meeshii uu wixii loo soo dhigay iyo waqti loo soo dhigay iyo manhajka loo soo dhigay meeshii uu gaaray in la ogaado la rabaa marka runtii waxa la marka maadaama amni qoom uu yahay waxa kamid ah dadka xoog uga qayb qaata oo jihad ku bixiya ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa noqdeen qaybta guud ee gobolka Banaadir iyo qaybaha kale dhamaantood si fiican nagala qayb qaateen taliyaha booliska Soomaaliyeed ilaa dhamaan taliyaasha saldhigyada iyo kulli qaybaha si fiican imtixaanka loo qayb uga noqdeen way bilaabeen xarumihii dhan way la wareegeen amniga si fiican ay u sugayaan macna booliska kaalintii aan ka rabnay meel fiican uu marsiinayo waxaan rajaynayaa inuu saas ku dhameeyo dacleedno waa gartay marka ka soo laaban amniga iyo guud ahaan iskaashiga hay'adaha amniga iyo maamulka waxbarashada ee gobolka Banaadir agaasima waxa laga yaabaa sanadihii ugu dambeeyay tabashooyin iyo cabashooyin way jiraan imtixaanka marka la qaado haba ugu badnaatay cabashooyinka imaanaya in imtixaanka la musuqmaasuqo in imtixaanka meelka la geliyo propagandada ay iska badan tahay ilaafinta wararka been abuurka intee gaarsiisan tahay kalsoonida maamulka waxbarashada ee la xiriirta in imtixaanka uusan gacantooda ka bixin suuqyada madow aan lagu arag وما سنت سؤال في عوالل كالسوري أنكو قمنا أننا امتحان كان كشقينا وهالوذينا امتحان كشقينا دمانتود بقولك بقولوا وأوحلنا جهدي على وبحيي دتك كشقينا هي وحن لو سمي سدت كاس لو كالسونا حبر عيال لو سمي معناها هي لو وانكو أقنا أجاسيمة تهاي أجاسيمي واحدة من امتحان كتهاي يو واحد امتحان كشقي سام واحد كلا كشقي سام منا لما فيرين امتحان كمرة لا شقينا هي دمان وحكى شقية حفيسه أنا كشقية ما دام امتحانك هولوي هاي وعليها حتى إن حفيسدي معلومة امتحانك السعودة وحكى شقية سجين دمان لقاده حرمها امتحانك ما دام الأساسي هاي امتحانك سكر سنين الله إلى إذا اللي أجيه تذكي لأمسيه إن في عينهن هذا نحبر على اسمي وعلى اسمي يحله ورقد أمانة مجعابسة كوريس أرد خوف كمركر ولا مجعابة خوف كستا امتحانك اللوكله مجعابسة الله سمينا markii la magacaabano waxa loo sameeyaa warqad amaanad waxa qodob ku qoran qofka iska akhrinayo oo hadduu ogolaado uu saxiix hadduu soo ogolaano uu iska laabana kama mid noqonayo dadka imtixaanka shaqeynaya warqadaas amaanad laga saxiixay dokumentiyo kale laga saxiixay jira intaas loo diimay waa la wacdinayaa culimada loo keenay si fiican baa loola hadlay kalsooni kale sii dhashay alxamdulillah imtixaankii waa noo dhammaystiran yahay waxaan rajaynayaa insha allah inaysan wax cilada nagu imaan boqolkiiba boqolna dhammaan بعد dadka ka shaqeynaya hawlwadana imtixaan ka shaqeynaya nooc kasta yihiin waa u kalsoona waa gartay hawlwadana ka shaqeynaya imtixaanka waa tiro badan yihiin maadaama 72 xarmood lagu qaaday imtixaanka dad badan ay noqon doonaan meelo kala duwan ama haadaan macallimiinta dugsiyada ama iskuulada iyo guud ahaan hawlwadana kala duwan marka la fiiriyo imisa ugu talagasheen xalaagalaaskii in ay ama la socoto imtixaanka dhaqaaqiisa ha ahaato kor joogteynta imtixaanka ilaalinta ama kormeerka guudban ma santahay xarumaha way kala duwan yihiin qaarna waa xarumo waaweyn qaarna waa xarumo yar yara waxay ku xiran tahay inta arday ku jirta ayay ku xiran tahay marka xarunta sida beeska caadiga xaruntiiba hal kormeero waay iyo kormeero labaad ama kaaliye sida waxa lagu dhawaaqo marka waa kormeerihii iyo kaaliyihiisi waa dadka xarunta mas'uulka imtixaanka loo dhiibayo markii subaxdii ay geeyaan dadka imtixaanka wada ay geeyaan hadhowteen laga soo qaadaya 5 maalin ka shaqeynaya imtixaanka فصل كستا معلمين هياك شقين فصل كو حلو تلقى 20 ارضي هدو هولي هنا هولكي كو خرنتا هولكي waxa galaysa 40 mid waxa galaysa 60 هولكي size ku inta ila هولك waxa loo fiiriyaa fasal ahana loo qiyaasa marka laakiin sida basic ah oo sax waxa waaye fasalkii 20 qof loo tagalay si kursiga hal qof fariisto laba macallin loo tagalay macallin hore istaaga iyo macallin gadaal istaaga oo ardayda ilaalin qol kursiga hal qof fariisanayo xagaasna waxay qayb ka tahay in caafimaadka ixtaala ilaalin iyo caafimaadka la ilaalinayo kala fogaanshihi imtixaankii badqabkiisa waa la ilaalinayo imtixaanka dada keenaya baawur kasta oo imtixaanka geenaya waxa la socda booliska ayaa la socda
looma din kaliya baabuurka imtixaanka la saaray lama dhihin hebelaan ku aaminay lama dhihin askad bax meesha baabuurkan imtixaanku saaran yahay waxaa la socda baabuur boolis ah oo ilaalinaya daba jooga hadhowtii asaas soo celinaya xaruntii imtixaankana ku soo celinaya la soconaya intaas waxaa dheer kormeer guud oo ka sareeya oo madaxda ah ayaa jira oo xarumaha soo maraya oo la soconaysa marka ilaa xad noocaas imtixaanka laga shaqeeyay waa gartay imtixaanka maadaama intaas laga shaqeeyay agaasi waxaan ogsoonahay sanadkii hore waa ogeed ardayda imtixaanka gaarta aad ay u badnaayeen gaar ahaan gobolka banaadir iyadoo magaaladii caasimadda ay tahay iskuulo badan waxbarashadii ay tahay meel wanaagsan oo tayo fiican ay marayso goobaha waxbarashadan ay ku badan yihiin sanadkan rajadiina maxay tahay ay la xiriirtaa in ardayda aysan harin intooda badan qiyaasta aad samayseense iyo rajada aad qabtaan sanadkan maxay tahay waa mahadsan tahay meeshaas waxaan rabaa inaan xogaayar aan ku istaago oo warbixin fiican ka bixiyo waa run sanadkii hore arday badan imtixaan ku dhacday sanadii horena way ku dhici jireen waxaa laga yaabaa macluumaad oo aan markaas lagu soo dari jirin macluumaadka in lagu soo daray oo arrinta ay kor u qaatay wasaaraddu dadaal fiican ay ka samaysay arrintaas marka maadaama dugsiga dhexana number xoog leh ka dhacay 3,000 iyo xoogaa arday dhacday 280 dugsiga sarana waxaa dhacday 8,850 si guud Soomaaliya uga dhacday gaar ahaan gobolka banaadir 7,870 iyo sagaal arday ka dhacday marka loo fiiriyo numberka ugu badan 95% wuxuu ka dhacay gobolka banaadir markii ardayda dhacday waa maqasheen buuq badan ka dhashay markaasna agaasinku waa cusbaa imtixaankii sideedkan anagu mashquul ku ahayn wasaaraduna imtixaankii form 4 iyo dadaalkiisa ku jirta maadaama waxbarashadii lagu soo wareejiyay 2020 bishii Agoosto waxaan go'aan ku qaadanay anagoo cabashooyinka ka jawaabayna sanad dugsiyeedkan hadda imtixaanka dhacayana u diyaar garoobayna waxaan sameynay sidee arrimaha looga hortagi karaa sidee loo wada baabi'in karaa haddaan la baabi'in karin sidee loo yareyn karaa arrimahaas waxaan sameynay marka kow waxaan la xisaabtanay markii waxbarashada furantay iskuulaadka dhammaan iskuulaadka ku yaala gobolka banaadir ee 60% ka badan ee ardaydu dhacday aan u yeernay xafiiska u yeernay agaasinka waxaan wala fariisanay wala shirnay waxaan weydiinay waxaan sababay u dhaceen maxaa keenay ina 6% macnaheedu waxa waa hadaan 200 arday haystay 40% ka dhacday 100 waxa ka dhacday 140 arday ka dhacday 160 arday ka dhacday 40 ku bastay marka number tiro badan ka dhacay waana mushkilada keentay arday inay badato arintaas si fiican aan kala hadalnay iskuul kasta oo 160 la dhac markaan la xisaabtanay dokumentiga ka diyaarinay waxaan u sheegnay sanad dugsiyeedkan hadda socda ee imtixaanka hadda caawa meesha u fadhina ka hadalkiisa uu dhamaado iyo ka form 4 markuu dhamaado haddii iskuulkaasi uu ku soo laabto darajadii shalay oo 160 ama 150 iyo 140 inta waa isku dhow yihiin haddaa ku soo laabatid in 2020 iyo 2022 sanad dugsiyeedkaas furmaya in iskuulkaas gobolka banaadir ka shaqeyn oo sa furmin oo gabiyahan albaabada loo laabo sababta maxaa dhacay waa waaxid go'ay hadda xididka la xirin dhiigaas uu soconaa arrintaas waa arrin go'aameed madaxda sare dhan aan gaarsiinay isku waafaqsan yahay iskuul kasta ee 200 iyo kamid ah 250 iskuulna waay iskuulaadka magaalada muqdisho waxa ku taala 642 iskuul 642 iskuul ayaa waxa dhacday ardadoodii 200 ka badan 250 iskuul 250 kaas iskuul digniintaas hasiina koow waa qodob oo taas ah in laga hortago ardayda tirada badneed waxa kala sameeynay kormeer waxaan kormeerinay manhajka waxaan kormeerinay maamulka iyo macallimiinta xaaladooda waxaan kormeerinay ardada si gaar ah waxaan kormeer ugu sameeynay markii la soo gaaray sanadka barkiisii oo nidaamkii kooban imtixaanka la galay waxaan fiirinay ardada form 4 u fariisanaysa gobolka banaadir inta xogta ka soo dejinay imiska aan iskuulaadka ugu tagnay arday kasta waa kor istaagnay hebel aaw taasoo aan ka ilaalinay in arday banaanka istaago oo la dhaho arday aan imtixaan gali waayay koow waxaan kaloo fiirinay manhajka xagga maraya dugsiga sare form 4 haddana waxaan sameynay kaasan soo dhameynay xogtaas markaa xirnay haddana sideedaadkaas sidoo kale ku sameynay labadooda markaan saas u sameynay oo manhajkii iyo ardadiiba aan soo ogaanay saddex waxaan ku darnay annagoo xogtii fariisinaa mar kale maamulayaashii 642 iskuul waxaan ugu yeernay agaasinka waxaan hor dhignay xogtii aan ka soo aruurinay waxaan in xogtaan aan ka soo aruurinay hubi ma tahay xogtaadi dokumentiga laga saxiix waa markii saddexaad markii afraad waxaan sameynay xogtii dib intoo qurxino u habeenay waxaan imiska dhexdiisa waxa looga diray qadaya confirmation letter
warqada loo diray gudihiisa imiska gudihiisa user password iskuulka leeyahay waxaa la yidhi imiskaada gal user passwordkaada ku gal warqada meesha kuu taalla fiiri nambarka arday ee kuu joogta iskuulka hadduu yahay 8 hadduu yahay form 4 ma kuu saxan yahay xaqiijiso haddaa xaqiijisid waxaa tiraa waa aqbalay hadduu waa aqbalay dhaho wuu save garanaya anagu noo soo dhacaa marka iskuul kasta marka oo intuu dhex galay imiskiisii ee warqadaasi safe dhahay oo markii afraad markii shanaad ah oo yiri waxay waa idin yihiin markaas ka bacdi xogtii waxa loo diyaariyay row numberka la diyaariyay waxa lagu dhisay xogtaas waxa lagu dhisay ardada imtixaanka loo daabacay imise waaye ardada row numberka loo diyaarinay imise waaye waxa ku xiran kormeerka ku xiran xarumaha ku xiran macallin imtixaanka ilaalina ku xiran sababta xogtaas oo fariisan imtixaanka boqolkiiba 70 ma la diyaarin karo marka iskuulka intaas intii la sameeyay hadda ardayda banaanka ay joogta mas'uuliyadda qaadaysa cidii iska leeyahay oo ah iskuulka ee mas'uuliyadda warqada oo dirteen xaqiijina saddex jeer waxa la tagay form 4 ayuu la goobayo asoo manhaj la goobayo asoo eed la goobayo asoo manhaj la goobayo iskuulka loogu tagay maamulihii documentation kaas ma laga soo diyaariyay haddana xafiiska loogu yeeray 642 maamule iskuulka xafiiska loogu yeeray wixii laga maxaa la go'aamiyay inta lagu joojinay imisa gudihiisa warqad looga diray intaas wado waxa loo maray in xogta ardayda la fariisiyo ardayda imtixaanka galaysa sideedaadka iyo ardayda imtixaanka galaysa form 4 kan la hubiyo taasoo loo digtoonaanayo in dhicidda ardayda la yareeyo waxa kaloo meesha ku jirta waxaan soo saarnay warsaxaafadeed annaga iyo bahda waxbarashada daladaha iyo midowga kulli soo saarnay maxaa bishii December iskuul dhigi kara iskuul sara course dhigi kara isjiri kan waxyaabaha sanadka hore badiyay ardayda dhacaysa waxa ahayd iskuulaad iskuul sara oo course dhigaya oo wuxuu isku dhijinaa form 1 form 2 form 3 form 4 course amru si marka form 4 form 3 form 4 arday isku qaatay sanad gudihiis sidee imtixaan uga jawaabi kara halkii buuga la dhameyn karin suurtagal ma arintaasna sanadkan dadaal badan laga sameeyay san soo socotay ma jirtaba oo wasaaradda wax soo saartay go'aan wasiirka waxbarashada wax soo saaray digreetooyin arintaas lagu mamnuucay ay loo joojiyay arimahaas oo dhan waxa loo sameeyaa marka in laga digtoonaado wixii sanadkii hore dhacay waxaan rajaynayaa sanadkan wax dhici doona arday ma dhacays ma dhihi karno inay ka yaradaan sanadkii hore maxaa sanad soo socona insha Allah saas uga siiraan ka sii babaan taasoo haddana 10 laga sii qaadanayo iskuul kasta oo boqolka 40 ka badan arday iska dhacda xisaabtan adag u yaala sanadkan markuu furmay go'aanka qaadanaysa waa gartay agaasim aad u mahadsan tahay waxa kale oo meesha ku dar lahaa ayaan waxaan sameeynaa sanadkan cusub oo ku soo darnay meesha ardada dadka baahiyaha gaarka qaba inclusive education Allah macna in wixii dhan aan koobno ardada dhigoolayaasha iyo ardada indhaha ma gali jirin imtixaanaadka qaranka marka imtixaanka gaar ahaan sideedaadka anaga ku hayna gacanta gobolka Banaadir ardadaasi imtixaankii waa u diyaarinay ardada indhaha lana imtixaan ay leeyihiin oo bareelka ku qoran farta bareelka ay taabanayeen ha waa u diyaarinay ardada dhigoolayaashana imtixaanka ayaan ku haboona u diyaarinay ay waxay ku fiican yihiin indhihii leeyihiin dhagiha ka maqan imtixaanka marka sida dadka caadiga way ka shaqeyn karaan waa meelaha qaar ku sign language oo kale waa iman karaan ardadaas waxa uu talagalnay inaysan noqon arday mar kastaba ka go'an ardayda Soomaaliyeed ee dhibaatadii ay qabeen oo jireed ay ugu darsamin dhibaato oo aqooneed ugu darsamin alxamdulillah ayadana biri waxay kamid yihiin ardayda imtixaanka galaysa waa guul kale ayadana runtii oo laga shaqeeyay waa gartay waa masantahay agaasime sharaxadaas guud ahaan inta aad bixisay marka la fiiriyo agaasime ardaydu maadaama xuquuq ay leeyihiin waxa laga yaabaa caqabadaha oo iska badan yihiin imtixaan idinku imtixaan qaadaysan oo kii shahaadiga ah daladihiina imtixaan ay qaadayaan haddii ardayga lagu culis saaro oo yiraahdo kana inaad gashid waaye ardayda sidee la isugu waafajin karaa iyaga oo aan culays dareemaynin in fursad loo siiyo in ardaygu uu helo fasaaxad iyo fursad uu imtixaanka shahaadigan isku diyaarin karo kii daladan isagoo aan saameyn ku yeelan oo u geli kara marka hadashin arrimahaas daladaha iyo iskuulada waa su'aal fiican ama santa walaal arintaas waa kala hadalnay waa gudoomiyaha gobolka ayaa la kulmay bahda waxbarashada midowga dugsiyada iyo daladaha waxbarashada magaalada Muqdisho ka jira waxyaabihii uu kala hadlayna gudoomiyaha waxa kamid ah laba imtixaan ardada gobolka Banaadir qaadi karin dawlad goboleed dhan imtixaan lama qaado labaad gobolkani ku soo hartay gudoomiyaha gobolka uu u yeeray runtii asoo waxbarashada gobolka Banaadir oo ka dhiidhinaya culays ka saaran uu kala hadlay kabacdi saxaafadeedan soo saarnay waaba joojinaba imtixaan sanadkan 2021 imtixaan aan ka ahayn imtixaanka qaranka oo ah ka sideedaadka uu gobolka Banaadir qaadayo iyo kan form 4 ka wasaaradda waxbarashada ee wadanka u matasho ay qaadayso waxaan ahayn lama gali karaa dhan waana joojinay
ciddii ayadoo marka qarsatay oo si gooni u qaadatay waa wax gooniya ardaygana Soomaaliyeed shahaadada la aqoonsan yahay ee jaamacadu ku tagi kara shahaadada wasaaradda waxbarashada waay jaamacadahana meel fiican hadda maraysa wasaaraddu shaqo fiican ay qabatay waadii hadda ay soo saartay kala saaridda jaamacadihii dadaal fiican ka samaysay taasna waxay sii muujinaysaa in jaamacadaha la xisaabtamo laftigooda marka waa la joojiyey imtixaankii daladaha sanadkan waan ka hadalnay ka soo socdan maba jiraayo iskuulku talageli kara iyo cid ku talageli kartana ma jirto marka sidaa daraadeed imtixaan kaliya oo ardada ay galayso annaga dhan isla ognahay hadduu yahay dugsi dhexana waa 8aad oo gobolku qaadayo hadduu yahay form 4na waa midka wasaaradda waxbarashada ay qaadayso hadduu alay mas'ala 10 bishan May 2021 marka ardada halkaas imtixaan usoo diyaar garoobeen orin inta hadda aan ka ognahay oo magaalada ka warqabno imtixaanaadkaas daladaha cid gashay oo saas u buuran ma jirto boqolkiiba waxa way 80 wax galay ma jiraan waa ma santahay wala daawada waxa la socotaan barnaamijka raadraac oo si toos ah idinkaga imaanaya telefishinka qaranka caawa barnaamijka waxa marti noogu ah agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir maana Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Nuur oo sida aad daawanaysiinba aynu wax badan ka weydiin doono imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe oo British rasmi ah gobolka Banaadir kaga bilaabanaya sida aad xogta hore agaasimuhu uu bixiyana imtixaanka uu British rasmi ah u bilaaban doono 27 xarumoodna uu ka bilaaban doono agaasimaha dib ugu laabto agaasime waxa jira markasta marka imtixaanka la galo ardayna way gudubtaa oo waxay keentaa dhibco wanaagsan iyo natiijo fiican oo imtixaanka loo riyaaqi karo qaarkoodna waxa laga yaabaa inaysan keen dhibcihii loogu talagalay inay gaaraan marka waxaana meesha imaan doonta qol hal yasawi ladina yaclamuuna waladina laa yaclamuun marka qofka isagu dhibcaha sare keena natiijada wanaagsan keena balan qaadiyo ugu talagashay ma jiraan ardayda kaalimaha hore imaada ama 10 ka ama 20 ka ama 30 ka ugu horeysa ama 100 ka intaba وما صنف ولا امتحانك والله بو من وكيد دكسيه دحه من وكيد دكسيه سره كان دكسيه سره الحمد لله waxay ardada kaalmaha gasha waxay helaan scholarship sanadii hore toonka ugu horeysay bis la qaadi jiray oo la siin jiray waxbarasho bilaash ah sanadkii dhawaataan wasaaradda waxbarashada 100 qof ay tiri waa siinayna aydan guul fiican ahayd inkastoo adduunkii COVID-19 ka dhacayo bixistii ardada iyo adduunyada ay istii adkaatay ardada dugsiga dhexe sanadkii dhawaataan 10 qof aan siinay scholarship ilaa 3 sano oo 4 sano isku dhiganaya ku dhigto wala yaab duruufaha qaarkood dadka qaarkood inay rabaan inay tagaan iskuulaad aad qaali oo ah anaga marka waxa u sheegnay de iskuulaad waxa leenahay dawladdu leedahay tayadooda hadda si fiican looga shaqeeyay meel fiican maraya iskuulaadka iskuuligood waa laclaan iskuulaad kale la hadalnay oo maxaa ayagana fiican aan waxaan kala hadalnay inay ardada scholarship siiyaan agaasigu maadaama uu cusbaayo uu hadda dhaqaale meel u yaalo uu ku kabaayo ardada si jirin way naga aqbaleen sanadkii dhawaataan ilaa 10 arday ugu horeysay imtixaanka 8aadka ayaa kaalmihii waxaan ku siinay deeq waxbarasho boogaan siinay xafiiska ugu yeernay waalidiinta waa siinay boortii sanadka wax ku baran lahayn waa siinay waxaan siinay iskuulaad baan geynay way naga wada aqbaleen khayr Allah siiyo iskuulaadkaas sidoo kale sanadkan sidoo kale ugu diyaarsanahay du'aaleedmo sunnaha dib bilaabatiin hor la wada ayaa naga go'an inaan ayana siino iskuulaadkii iskuulaad waxbarasho friyan aan u helno ardadaas waqti wax ku baran siino wixii qalab suurtagal ah inaan siino du'aaleed balan qaadida waa halkooda way hormarsantahay agaasime wasaaradda waxbarashada ka hor manhajkii ay soo saartay oo si rasmi ah u dhaqan galay iskuulada intooda badan laga dhaqan galiyay ardayduna ay qaataan waana manhajka hadda ay ku galayaan ardayda 8aadka ee dugsiga dhexe imisa maadi ardayda galayaan inta imtixaanka u socdo sax way su'aal kale oo fiican aad u muhiim ah waaye in la ogaado loo baahan yahay wasaaraddu runtii aad u diyaashay juhdi badan ay bixisay ilaahay khayr ha siiyo madaxda kala duwanaa kuwii hore oo Soomaaliya ku hadda joogaba waxa waqti lagu bixiyay juhdi loo galay in la helo manhaj dhameystiran haddana ardayda Soomaaliyeed ay wax ku bartaan isku midna ka yihiin oo ardayga maanta xamar ka taga hadduu Kismaayo tago hadduu Beledweyne tago oo meeshiisa kala qabsan karo wala yaaba chapter inuu ka hormaro laakiin uu yahay u yaqaano chapterkaas uu soo maraajicsan ama lagu dhigi lahaa arrintaas kuul bay ahayd sanadkii hore sanadkiisan soo ka horeeyay waxa la hirgeliyay kii dugsiga dhexe imtixaankan asaan ku qaadnay sanadkiisana oo hadda imtixaanka lagu qaadayo dugsiga jaamac wasaaraddu waxay ku qaadaysaa manhajkii uu madaxweynuhu ku furay iskuulka Maxamed Mire sanadkiiskan madaxweynaha qaranka uu ku furay uu ku maxaa taabagelintiisa dhaqangalkiisa uu kaga dhawaaqay
sanadkan muxuu ahaa manhajka dugsiga sare manhajkii wasaaraddu samaysay ayaa imtixaanka lagu qaado oo lagu dejiyey taas runtii juhdi badan lagu bixiyey waan loo guuleystay macnaha dhammaan dugsiga dhexe maadooyinka waxaan ku dejinay af Soomaali markii laga reebo maadada luqada carabiga luqa ah ingiriiska luqa ah iyo af Soomaaliga walba af Soomaali luqa ah laakiin maadooyin ka soo haray oo cilmiga oo wax lagu barto luqada lagu barto kulligood af Soomaali iyo tarbiyada diin ayadana tarbiyada islaamka carabiga inta kale af Soomaali lagu dhigo marka manhajka dugsiga dhexe waa af Soomaali dhammaantood af Soomaali dugsiga sare waa ingiriis iyo carabi af Soomaali inta waa la ogol yahay sharciga uu ogol yahay qaranka waan loo ogol yahay laakiin waa isku mid asagina imtixaan lagu dejiyay maadooyinka waxa soo hartay marka imtixaanka lagu galay wasaaradda marka laga hadlay imtixaanka form 4 maadaama aan manhajkan soo aruurinay soona aragnay ciladaha ka jira gobolka Banaadir iskuulaadka waxaan ka codsanay una sheegnay laba maado inaan la dhigin duruufo jiray darteed maadada businesska iyo maadada IT-ga technology dugsiga sare waxaan labadaas maadada sanadkan lagu dhigin dugsiga dhexana maadada technology ayadana waxaan aragnay inaan la dhigin duruufo jiray awgeed ayana waa la joojiyay saddexaas maado oo dugsiga sare laba ah technology iyo business ganacsiga iyo dugsiga dhexe technology ah intaas imtixaanka lagu soo darin laguma qaadin laakiin waxaan rabaa meesha inaan u gudbiyo bahal waxbarashada hadda inaan u gudbiyo fariin ku nool gobolka Banaadir ka shaqeynaysa san dugsiyada ka bilaabanaya hadii Ilaahay hana gaarsiiyo 2021 imtixaanka maadooyinka dhan lagu qaadaya hadduu yahay dugsi sarena 13 maado waa imtixaanka oo ganacsiga iyo technology ku jiraan hadduu yahay dugsi dhexana technology ku jiraan 8 maado marka waxaan u sheegayaa iskuulaadka iyo bahal waxbarashada dadka shaqeeya inay ku darsadaan qorshahooda si dugsiyadka ku furayaan sababta iskuulaadka macallin baahay maamulaan soo ahaa iskuulaadka soo shaqeyn jiray muddo waliga waxbarashada shaqeyn jiray iskuulaadka markii imtixaanka bishii May imtixaanka la dhameeyaa ilaa June dhexdeeda imtixaanka lagu dhameeyaa June kala barka haray 12 ka hartay iyo January iyo July 20 maalin u horeysa waxaa la isku diyaariyaa qorshaha iskuulka la dejiyaa macallimiin cusub inay qaadatiin macallimiin kala ka tagaan qorshihii iskuulka dhan oo sanadkaas afuraysid ku wada la diyaariyaa marka muassasaadka iyo iskuulaadka waxaan u sheegaynaa inay qorshahooda ku darsadaan macallimiintiina diyaarsadaan macallimiintiina anagu waxa awoodayna tababar wax sameeyna ayaguna tababarku dhinacooda ka sameeyay muassasaad weyn jira waxbarasho ka shaqeeya in maadooyinka oo dhammaystiran manhajka la dhigayo waxa kale oo sameeynay sanduuqsiyeedkan oo bilownay haddana aan mar kale dib u bilaabayna maado waxa jirta oo dheeri ah oo dugsiga dhexe dheeri ku ah laakiin maadahan aan loo qorin waa maadada jirdhiska jirdhiska waxaan sameeynay tababaran ayaan u tafurnay macallimiinta hore muxuu ahaa sportska bilaabeen manhajahana waa la dejiyay manhajka waa ka mid yahay asagiina waa sanadkan waa qorshaha iskuulaadka inay ku daraan waay oo la helo iskuul kasta xiisad jirdhiska ah oo maado qoran waay marka waxay ku jirtaa qorshaha qarankan ay ku jirtaa qorshaha manhajka ay ku jirtaa marka maadaama qorshaha manhajka ay ku jirto waxa laga rabaa iskuulaadka gobolka Banaadir dhamaantood inay si rasmi ah oo buuxa u hirgeliyaan manhajka dhameystiran saddex tooyinka maado oo form 4 ka ah imtixaanka lagu qaadayo kuwa lagu qaadayo sideedaadka 8 maado iyo maadada jirdhiska oo laga rabo maado ahaan in laga helo jadwalka iskuulka ee sanadka dhan waxa kale laga yaabaa oo raba ayadana inaan si afayfto si hordhigo muxuu ahaa dhamaan iskuulaadka muxuu ahaa manhajkan uu iskaamilaya maadaama iskaamilayana waxa laga yaabaa oo ku talagalku yahay sanadkan la joojiyay sanadka hore cabashooyin ka yimid darteed imtixaanka sanadkan form 4 waxa lagu qaaday form 4 kaliya oo 10 maada sideedkan waxa lagu qaaday sideed kaliya oo 7 maada laakiin san soo socda waxa laga yaabaa u badan tahay in dugsiga dhaxan laga soo bilaabo shanaad oo shanaad iyo lixaad sideed imtixaanka lagu qaadaya form 4 kan waxa lagu qaadaya form 1 iyo form 2 iyo form 3 iyo form 4 ayaan waxa rabaa in loo sii diyaar garoobo qorshaha sanadka lagu darsado oo si tayo waxbarasho loo ilaaliyo aniga waxaan ka baxay iskuulka Imaam Shaafici ayaan ka baxay 2003-2004 markaan ka baxay iskuulka aan ka qalin jibinayay form 1 iyo form 2 iyo form 3 iyo form 4 imtixaanka laga qaado marka dugsiga dhexe ka baxayna inta kale laga qaado shanaad lixaad toddobaad sideed laga qaado marka taasna waxay muujinaysay tayada waxbarashada adag tahay anaga xilliganaas macallimiintii waaweynada wax noo dhigaysay tayo fiican bay iskuulaadka lahaayeen haddana insha Allah tayada waa soo celinay inta dhimana waa dhameystirnaa waxa la rabaa marka intaasna qorshaha ee iskuulaadka gobolka Banaadir ku darsadaan sanduuqsiyeedkan laba arrimood inay qorshaha ku darsadaan in imtixaanka dugsiga dhexana shanaad ka bilaabanayo
imtixaanka form 4 kana form 1 inuu ka bilaabanayo ayuu darajooyin mid waxa laga qaada 10%, 20%, 30%, midna 70%. saas camal ayay ku imaan kartaa iyo maadooyinka dhameystiran in la dhigayo intaas qorshaha sanadka lagu darsado insha Allah. waa gartay gabagabadii barnaamijka soo gaarnay agaasimi 9 bilood ka hor waxaa la wareegteen qorshihii tacliinta fidinta iyo siyaasadda tacliinta intuba iyo guud ahaan waxbarashada maamulkeeda ee gobolka 9 bilood ay idin buuxsantay oo wasaaradda waxbarashada aad kala wareegteen hiigsiga maamulka gobolka Banaadir dhinaca waxbarashada muxuu yahay waa masanta walaal hiigsiga waxa waaye waxbarashadan gobolka Banaadir waa wadnihi Soomaaliya waa caasimadda dalka waxa ku nool Soomaaliya oo dhameystiran oo dhan xulinka Soomaaliya meeshaan boqolkiiba doon dadkii joogaan ay wax ka baranayaan waxaana saaran mas'uuliyad ka weyn mas'uuliyad kale oo ka weyn saaran sababta waxbarashada wasaaradda u soo daadejisay ujeedu bixsan waxa waaye in dadka ku nool gobolkan iyo dadka meeshaan ku nool waxbarashadooda in dadkooda la xisaabtamaan wasaaraduna ayaga la xisaabtanto oo maamulkaas waxbarashada ay la xisaabtanto sidaa daraadeed marka hiigsigana waxa waaye in la helo tayo waxbarasho tayo leh dadku marka qaarkood ujeedu waxay ku bixiyaan tirada badan marka waxaan rabaa tiradiina waa rabnaa laakiin hadda waxaa noo muhiimsan tayadii waxbarasho inaan ku dadaalno si tayo waxbarasho loo helo marka waxaa loo baahan yahay maamulkii dugsiyada in la tababaro waxaan qorsheynay inaan qorshahan ugu jira 2 bilood fasax inta lagu jira in maamulayaasha iskuulaadka gobolka Banaadir ama aan tababarno wacyigelin u sameeyno macallimiinta gobolka Banaadir ku nool inaan tababar iyo wacyigelin u sameeyno in manhajka iyo ciladaha ka jira intii la qoro in loo gudbiyo wasaaradda waxbarashada loo gudbiyo ciladahana jiro already waxba la sii diyaariyo wasaaradda loo gudbiyay iyo in arday kasta ee sanduuqsiyeedkan dhigta fasalku waxa noqdo fasalka koobaad ilaa fasalka 12 marka 8aad ilaa 10aad way noo xiriyeen noo dhameystireen maadaama imtixaan lagu qaadayo inta ka soo harto 10ka fasal oo koobaad ilaa 7aad iyo form 1 iyo form 2 iyo form 3 sidoo kale dhammaan xogtooda in lagu xareeyo imiska qaranka imiska waxa iskala wasaaradda waxbarashada qaranka dhana iskala ka bacdi dowlad goboleedka kastana goonihiisa u isticmaalaa in arday kasta meesha lagu xareeyo arday markii la xiranayo la iska xareynayo arday maca imtixaankiisii naqliga ahaa imtixaanka caadiga iskuul ka qaaday oo iskuul ku soo shubaya halkaas waxa ilaalsamay marka jaranjarada waxbarashada waxa la helaa marka arday kasta markuu guurayo iyo meesha uu guurayo mashaakilku wuxuu naga haystaa marka fiirisay jaranjarada ardada waxa la rabaa inay jaranjarada noqoto markii dadka loo sheegayo graphiska haddii si gacanteeda ugu sheego waxa rabaa inuu saan waxbarashada tahay saan waxa laga wadaa in inta tahay fasalka koobaad dugsiga hoose koobaad labaad saddexaad afraad shanaad inta form 4 yimaado oo form 4 ugu yar yahay ardada ugu yar tahay hadda laakiin waa cagsi gobolka Banaadir san waay form 4 ka ugu badan inta waxa ka soo boodaya 8aad oo asna badan saddexdan kale dugsiga sare oo dhexda ku jirta si u gaaban yihiin nambaradu waa ka yar yihiin kuwa kale way yar yihiin taas waxay ku tusinaysaa marka in arday badan oo meesha ka dhaxqasan tahay waxa ku joojin doonaa haddii aalidmo oo looga hortagaya arday kasta ee sanduuqsiyeedkan 2020-2021 waxbarasho dhameeyay oo fasal dhameeyay in maca imtixaankiisa soo geliyo si loo aqoonsado markuu sanduuqsiyeedka dhamaado oo bisha Agoosto 2020 aan furno sanduuqsiyeedka inaan helno ardayda dhameystiran aan rarno systemkii oo loo aqoonsan sanad cusub markaasna la ogaado ardada cusub ee soo gelisay iskuulaadka ayaan la hubiyo halkaas waxa ka ansaxmaya jaranjaro ardada waxyaabahaas oo dhan aan u soconaa waa gartay gabagabadii aan soo gaarnay adoo isoo koobaya taladaada ugu dambeysay ee waalidiinta iyo ardayda iyo guud ahaan macallimiinta iyo iskuulada ujeedina Ismaaciil waa maasanta walaalkay waxaan kaga faa'iideysanayaa fursadan oo dhammaan dadka ay ardayga intaas oo qof ku wareegsan waalidkii nuuciisa kala duwan maamulkii iskuulka macallinkii baahida waxbarashada agaasinka waxbarashada wasaaradda waxbarashada intaasi dhammaantood waxay u baahan yihiin inay iskaashadaan oo iska kaashadaan arday quality oo arday tayo leh inaan soo saarno si ardaygaas u soo saarno waxaan imtixaanaadka hadda bari bilaabanaya iyo kan form 4 kana talan bixinaya sanadkiisa soo socdan talan bixinaya imtixaankan hadda talan bixin waxa waaye ardayga in waalidiintu biri ardada markay soo dirayaan maadaama arday yar yihiin iyo kuwa form 4 ka markay soo dirayaan arday niyadina soo dhisaan ardada casharadooda iyo imtixaanka si u diyaarinayaan ka warqabaan ardaygan ay dhahaan waqti fiican seexo hurdo fiican seexo haysdaji ilaahay tala saaro waqti fiican seexo subaxdii waqti fiican soo kaco waxa diyaarsado xunigiyo aan baahi qabanna la soo diro wax la soo siiyo ardayga niyadda loo dhisay oo macallimiintii iyo waalidkii iyo maamulkii niyadda u dhiseen la soo diro imtixaankii taas waa qodob
oo imtixaankii qusaysa tan labaad oo ugu muhiimsan waxa weeye dugsiyeedka soo socda in dhammaanteen aan u diyaar garowno intaas qolo aan sheegay inaan u diyaar garowno inaan ardadeena tayadooda waxbarashada aan isku mid ka noqono aada amaasan tahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka raadraac oo caawa aynu si gaara ugu falanqeynay isla markaana aynu kaga hadalnay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe oo berito si rasmi ah kaga bilaaban doono gobolka banaadir waxaan si gaar ugu mahad celinaya agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada ee gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar sheekh nuur oo caawa barnaamijka marti noogu ahaa ay nagala qayb galay waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo qaybta farsamada iyo kaamirada oo iyagu saaxiibaday ay gacan weyn barnaamijka ka qaateen tan iyo barnaamij midkaan lamida intaynu ku kulmi doono nabadgelyo